Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Waxaan soo gudbay cashirkii 15 waana muhiim jiddan taasi Allah mahad iska leh oo inoo sahlay inaan soo gudbino casharadii taxanaha waana very important Somali Star Online Training Quickbooks 2019 waxaan la soo xiriiri doonaa somalistarradio.com ama direct number waana engineer Maxamed Axmed Bare iyo casharadiisii taxanaha waa qaybaha ICT-ga waa very important taasi hadba talaabaan sii qaadayna waana muhiim jiddan taasi inaan talaabo sii socono Facebook page-keena waa soo gali kartaa haddii aad doontaan ama somalistaronline.blogspot.com baa soo gali kartaan oo fariin waa igu soo reebi kartaan haddii aad doontaan waana muhiim jiddan taasi cashirkeena maanta wuxuu noqon karaa sida funderkaan u soo dhisi doono markaan joogo halkan waa sida oo aan dhex joogo QuickBooks waxaan imaanayaa soo dhaaqayaa funders baan imaanayaa funder center baan dooranayaa new funder baan dooranayaa setup baa iga rabtaan inaan dhiso funder name marka hore Japan baan qorayaa haddii Japan ku aan kala soo degno magac qof caadi ah ku qori mayno balance hadduu ka furan yahay maanta aan cashirka duubayo waa bishii koowaad 12keedii 2019 balance hadduu hore jiro halkaas aan gelinayaa lacag balance ah haddii laakiin name company namekiisi Somali Ball waa company-geeni uu la shaqeeyaa okay master Japan ya master last name kiisa maxaa ka dhigaa marka who John Woo okay job title kiisi admin phone number kiisi halkaas aan gelinayaa ila soo casharadaani waa step hadda taakan u soconaynaa cashirkeeni cashir baa cashirku wuxuu ku geynayaa markaasi cashir 15aad waxa ku xigi doona kan 16aad oo mid walba shaqo gaar aan qabanayno email kiisi info main email hadii lagu dhaho waa info@japan.com iyo emailka kale website hadii leeyihiin iyo adar waa soo gelin kartaa copy baan soo dhahayaa si halkan aan keeno okay qaybtaan aan soo gashtay waa kan la soo ship gareynayo okay company-giisi waa Somali Ball Japan Master Who waa magaciisi waa funderkan soo setup gareynay halkan payment hadii lagu leeyahay halkaas uu fiirinayaa inta payment jirta haye account number ki payment-ga loo lahaa text anaga waxba nagama gelin account setting iyo akoonadiisi iyo add info ya additional info haduu jiro funderka tape-ka uu yahay ma consult ba ma service buu nagala shaqeynaya ma suppliers baan iska dhahayaa okay saasaan ku ogaanaynaa halkan waxaa inoo ya define fields-yada okay vendor is inactive hadduu inactive yahay oo active uusan ahayn inactive baa laga dhigayaa haddii kale active baa sidaa loo deynayaa halkan waa dhiraandhirintii sidii customer-ka aan usoo dhisnoo kale wey vendorskina dhiraandhirintiisii saasaan sidaa ugu soo sameynaynaa marka payment-iga ku cadaynaya haddii looga leeyahay oo jeeg ah boqolkiiba net inta lagu leeyahay saas oo kale u soo gelinaya haddii uusan jirinna ma jiraa leedahay okay wax payment yani kaasi laguma laha Japan okay oo haddii kaas hal uu yahay hal baa ka dhigaysaa haddii zero halkan uu yahay waa ka qaadaysaa ka tirtiraysaa okay cashirkeenaasi saasaan u qaadanaynaa billing rate levelkiisa la ekaysiinaysaa limitka oo hadda ku xadeynaysid weeye oo ku qoraysaa halkaana limitkiisii ugu dambeynta ayaa ku soo dhisaysaa okay marka kan haddii balance lagu lahaa baa galayo okay maantana bisha waa 1 bishii 12aad 2019 halkaas ay noo cadeynayso okay marka sida loo soo dhiso funderska ayaa saa waa ka dhismihiisii oo dhameystiran marka funderka marka saa soo dhiso oo ka muuqanaya telefoonadiisii wixii dhan way dhameystiran yihiin sida loo soo dhisay customerskan u soo dhisno kala way iyadoo casharo fara badan ay nagu soo socdaan cashirkan waxaan ku talagalay how to set up funder inaan barano iyadoo aan soo baranay how to set up sida aan soo dhisi lahayn customer waana muhiim jiddan taasi waa iska xiriyaa marka yes baan leeyahay okay kan waa ka baxaya okay baan iska dhahayaa marka okay
vendorskii marka active ka ahaa iyo kuwan active ka ahayn bas sidaas aan kala ogaanaynaa activity vendor. Okay, waan baranay maanta vendorka saan soo active garan lahayn iyadoo aan baranay sidaan customer-ka usoo sidaan usoo dhisi lahayn oo setup vendor baan soo sameynay. Vendorska waa supplierska. Okay, help baan dooranayaa. QuickBooks edition kan isticmaalayna waa kii 2019 ka soo baxay. Init QuickBooks Enterprise 2019 waana very important taasi. Vendorska waxaa ka mid noqon doona kuwa biyaha iyo korontada lacagta ka qaadayo. Vendorska wax walba oo la xiriira xagga company-ga ayay noqonayaan. Waana inaad saa u ogaataan hadba talaabo saan u sii qaadi doono. cashirkeena halka haynoo joogo iyadoo cashir fara badan aan soo gali doono sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan rabo mid bad sidiisa inaan u dhiso oo aan midna mid ka hormarin baan rabaa. somalisarabadyo.com ama direct number way la soo xiriiri kartaan haddii aad doontaan. waana injineer Maxamed Axmed Bare casharadiisii tacnaa migaanka macluumaad oo kalena Facebook way ugu soo diri kartaan page-keena ama somalisaronline.blogspot.com iyadoo cashir fara badan hore aan u soo wada faa'iideysanay arday walba oo jecel casharadan halkaas aan ka sii faa'iideysan doonaa. waana muhiim jiddan taasi. marka cashirkeena maanta halkaas aan soo keenaynaa iyadoo aan soo galayna cashirka ku xiga. sidaa darteed fi amaan Allah. wassalaamu calaykum.